aadan maxamed cali maxamuud iyo maxamed cali maxamed faarax ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxay saaga ku fulisay dil toogasho labada ruux ee dilka lagu fuliyay oo ka tirsanaa kooxda Daacish qaybteeda Soomaaliya ayaa maxkamaddu waxay horay ugu riday xukun dil toogasho taas oo ugu dambeyn saaka lagu fuliyay cali maxamed faarax iyo aadan maxamed cali ayaa maxkamaddu waxay sheegtay in dilal ay ka geysteen gobolka Banaadir iyo magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari dilka kadib waxa warbaahinta la hadlay Jarnaal Cabdullaahi Buula kamid xeeralinaha guud ee ciidamada qalabka sida marxuum X Dable xooga Cabdi Axmed Xuseen taariikhdu markay ahayd 27 bishii 1 2019 degmada Yaaqshid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 1 bishii 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha 10 2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa sidoo kale maxamed cali maxamed faarax abu hurayra 24 jir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere saddexaad dawladda hoose maxamed cabdi dhuxulow dawiil taariikhdu markay 5 bishii 2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Siinaay ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay 12 bishii 3 2020 maanta oo taariikhdu tahay 26 bishii 10 2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa xabsida dawladda Soomaaliya ayaa waxa wali ku xiran rag lagu helay in ay dilal geysteen oo ka tirsan al-shabaab iyo Daacish iyo askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya isla markaana dilal ka geysay gudaha dalka waa todobaadkii labaad oo xiriir ah oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dil toogasho fuliso waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay sidaan oo kale xukunno dil ah lagu fuliyo rag kale bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor